Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sii wada kulamo kala duwan oo la qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha ayaa kulamo muhiim ah la yeeshay saraakiisha ciidamada qaranka, hoggaanka dhaqanka iyo wakiillo ka socda qeybaha bulshada, kuwaas oo diiradda lagu saaray xaaladaha amniga, xoojinta wada shaqeynta iyo dardargelinta howlaha dowlad-dhiska. Kulamadan ayaa qayb ka ah dadaallada dowladda federaalk ay ku xoojinayso nabadda, xasilloonida iyo horumarinta deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la filayaa inta uu ku sugan yahay Baydhabo in uu sii wado kulamada kale ee muhiimka ah, kuwaas oo la xiriira adkeynta amniga iyo kobcinta wada shaqeynta dowladda iyo bulshada. Booqashadan ayaa muujinaysa muhiimadda ay dowladda siinayso la shaqeynta bulshada iyo hay'adaha amniga si loo gaaro xasillooni waarta iyo horumar muuqda. Warbaahinta Bariyo Media, Baydhabo.